galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin jimco ah bisha abriilna waa 13 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin iyo anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhaawac intee la eg ayaa dowladnimada soomaaliya uu u geystay murankii siyaasadeed ee dhowaan hareeyey baarlamaanka soomaaliya. biniaadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaan dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa khilaafka laakiin sidii loo xallin lahaa ayuu ummadaha kale dhan u samaystay nidaam geedi socodkan gudalooluu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaana nu aaminsanahay. si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka. maraykanka oo duqayn ka geystay duleedka kismaayo iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in ay duqayn ka geysteen waqooyiga galbeed ee magaalada kismaayo meel u dhow deegaanka janaac cabdalla maalintii arbacada. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in duqayntan lagu burburiyey baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa. maraykanku ma sheegin dad ku dhintay weerarkaasi, hase yeeshee waxa ay sheegeen inay iskaashi la sameeyeen dowladda soomaaliya si duqayntaasi loo geysto. waa duqayntii 12aad ee maraykanku sanadkan ay ka geystaan gudaha soomaaliya, taas oo bartilmaameedsatay maleeshiyaadka ururka al-shabaab. baarayaal ka socda hay-adda joojinta hubka kiimikada ayaa gaaray dalka suuriya waxaana la qorsheynayaa inay sabtiga ah duuma ka bilaabaan ururinta haraadiga hubka, halkaasoo weerarkii ugu dambeeyey ee la rumaysan yahay in kiimika loo adeegsaday uu ka dhacay. marka ay baarayaashu soo ururiyaan muunadaha sida ciidda iyo dhiigga dadkii ku waxyeeloobay ayaa waxaa loo dirayaa shaybaarka hay-adda. hase yeeshee hay-adda joojinta hubka kiimikada ah go-aan kama gaari doonto cidda ka dambeysay adeegsiga hubkaasi. waxaa keliya oo ay xaqiijin doontaa in hubkaasi la adeegsaday iyo in kale. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay duuma oo ka tirsan quutada bari oo ku taala duleedka dimashik. siiriya ayaa beenisay in weerarkaasi ay u isticmaashay hub kiimika. shabakadda warbaahinta n b c ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay ogaatay in weerarkaasi uu ahaa mid kiimiko kadib markii ay baaris ku samaysay kaadida iyo dhiigga dadkii goobta ku sugnaa. maleeshiyada daalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ammaan oo ku yaala galbeedka afghanistan iyaga oo dilay ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka. weerarka habeenkii khamiista ayaa ka dhacay waa degmada la yidhaahdo shindaan ee gobolka herad, kaas oo xuduud la leh dalka iiraan. gudoomiyaha degmadaasi shukrullah shaakir ayaa u sheegay v o da in weerarka fallaagada daalibaanka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 4 ka mid ah shaqaalaha ammaanka. afhayeen u hadlay daalibaan oo la yidhaahdo saxiibullah mujaahid ayaa war-saxaafadeed uu u diray warbaahinta ku sheegay in weerarka ka dhacay shindaan ay ku dhinteen in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada amniga afghanistan, iyadoo sidoo kalena ay fallaagada halkaasi ka kaxaysteen 4 gaari oo hub ah. madaxweynaha dalka ekwador ayaa fallaagada colombiya u qabtay muddo 12 saacadood in ay ku caddeeyaan nolosha 2 wariye iyo darawalkooda oo bishii hore la afduubtay. lenin moreno ayaa sheegay khamiistii inay fallaagada weerar ku qaadi doonaan haddii ay ku guuldaraystaan in ay xaqiijiyaan in 3 nin ay nool yihiin, balse faahfaahin dheeraada kamaanu bixin nooca weerarkaasi militari. moreno oo gariiraya ayaa khudbad tv-ga laga sii daayey ku yidhi, ma ogolaan doono in dhagarqabayaashu ay sharcigooda nagu soo rogaan. madaxweynaha ayaa ka huleelay shir madaxeed gobolka ah oo beru uu kaga qaybgalayay kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in raggaasi la toogtay.
weriye khavier ortega, sawirqaade powel rivers iyo darawalkooda efrain segera oo dhammaantood ka shaqeeya wargeyska el commercio ayaa laga afduubtay soohdinta ay wadaagaan ekwador iyo colombiya. raggan waxaa qafaashay fallaagada colombiya ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano FARC. kooxdan ayaa howlahooda ku maalgeliya lacagta ay uga soo xaroota ka ganacsiga maandooriyaha kokayiinka loo yaqaano. jimcaha oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lacag abaalmarina siiyey nin horey uga soo goostay maleeshiyada ururka al-shabaab bishii janawari ee sanadkan. wasiirka amniga ee maamulkaasi xasan maxamed xuseen ayaa waraysi uu v o eda siiyey iyo ku sharaxay sababaha ay maamulku tallaabadan u qaadeen. jaamac buule jaamac ayuu u waramay. iyadan mahadsantiin lankaas sidaad sheegtay wali hordhaan kutirsanaaada jiray qoladan al-shabaab kabacdi wadahadal dheer oo una la galnay dawladda koonfur galbeed yaa la galnay yaa wali kasuubiyay inuusa wali go-aan meel isku tirsanayo usan ku kutabo usoo markaas meelin kula tabi baabuur cabdibile oo nooc oo qoroga dhashiisay ee saariye wala hadda la fiiri wali haayena wal hordhaan leenka ballan qaadi usoo meelo rooguna kaleelini haddii ununa ballantiili roogtinilay muujiyaan waa kala dheeraade maada jarneedba. marka maadaama uu gaari cabdibilaa oo dhashiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga kee culayska aad saarteen? idan mahadsanta muhiimadda wali haytay arrinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti hadda wali kale muhiim sii hayti hob oo umadun laka dhibaatay ayay dadka soomaaliyeed dhibaato liinka geysidaayay inuu isa la kooyo oo isa ka dhiirida inuu isa la kooyo ayaa muhiimada lamaad hayti walina heliiska haayay baabuurka haayay heliis baabuurkaas markii isla sheeno abaalmarin la siiyo abaalmarintaas usoo meel roog la kala heliy isagna aragaasen abaalmarintiina geedka la siiyo. waaya mudane wasiir waxaad faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga. iyadaa mahadsanta abaalmarinta haddee waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo deerasi tiradii beese $50,000 $50,000 oo awalna heliiska haay wala una kaleelini unba ya oofiyani oo wala una anka bandhigni dadkana inay una dadka kale meelo jeer iyo naftiyo oo dhibaatada ka haysato inayo dhibka sii kubaafadan iyo la kooyan baabuurta la ka gumaadahay umadiyo sheenan insha Allah saasa ku rajeeyaan iyo nahan kaleen. waayahay dadka arrintan faaqidayo qaarkood waxa ay leeyihiin ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka baayo bakool iyo shabeellada hooseba ku sugan waa ay daruufaysan yihiin marka in hal sargaalna 15,000 la siiyo askarti kale ee maalin walbo safka hore ku jirtayna ay daruufaysan yihiin sidee isu qabanaysaa arrintaas maxaad ka leedahay? dhibaatada iyo daruufta iyo wala jara sax waaye ciidamada inay dhib jaro wala xaqiiqa waay wala qarya uma daruufaysiin laakiin may liin baahanya su-aalo wali inta horta daruufta ma sheen daruufta wala sheenay niman cadow ee al-shabaab oo dalkun dhibaato ka haayo jiditee hiridi dhibaato badan injeesidahay umadun yaa sheentay inay ciidamada daruufawaan taasa sheentay markase daro al-shabaab linku adkaada wal alla wali una suubii korn oo karaankan ee suubiyaan cid alla cidii al-shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheentona insha allahu tacaala wali rajeyna inaynu ka abaalmarino wal alla wali una helo korn. marka lacagtan abaalmarinaha aad bixinaysaan ma tahay lacag sharciyaysan oo baarlamaanku idinla ogyahay ama miisaaniyadiinii aad soo gudbiseen ka mid ah mise waa uun sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan? dowladda koonfur galbeed sida ad adiiba ogta miisaaniyadii aleta oo leenka talagalay ama dhinaga amniga haatoy ama meelo kale haatoy wali ku tirsanta wali leenku talagalay miisaaniyadii leenka talagalaya ku tirsanta hadde cid walba oo cadow ku tirsano awood korta inay baabuur ama wal sheentona insha allahu tacaala sidii una lankun abaalmarin aan abaalmarin doona biidnillahi alkariim oo bilaahi ugu dambeyntii maxamed xasan aadan oo sandheere loo yaqaano waxa uu idinku soo biiray oo soo goostay bishii January maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doontaa markii abaalmarinta laga gudbo?
maxamed awalba wali ku tirsanaada jaray umadoon deegaanadu waa ku jeedo ee reer koonfur galbeed intiisan kabiirna nimanka khawaariijta ee intiisan kabiirna wali ku tirsanaada jaray dadkun deegaanka sida ada la dareerta ummada Soomaaliyeed dhamaantii 27 sano burburaha jari burburkaasna waxyaabo badan la hamari dadku wali kabiirena jabhada badan hordaan kabiireen nimanku cadowga ee diinta ka qaraabadawna dadka marka hor wali sheegan in iyo diin wadaan dadkii geekasi markii aan sheegan in diin wadaan kabiiri oo hadda garowsadii in iyo nimanku diin wadna oo dhibaato umada ka hayaan oo biyo reed hangnagadaan wali kuma nagad doonana dadka deegaanka koonfur galbeed hordhaagna kuma hayaan wali hayaan oo ku toobad sheenan haddan iyo ku mid yihiin insha Allah taala dadkii ku mid yihiin meel alla meel isfado ku qabsado kor bidin ilaahay kariim kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Maxamed Xuseen waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ugu waramayay jaamac buula jaamac Washington jooga markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka Haaruun Macruuf oo soo diyaariyay ayaa inala socodsiinaya soomaaliya waxay toddobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyey socodkii hay-adaha dawladda kaasi oo markii dambe ku dhammaaday inuu xilka iska casilo guddoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya la geli doonaa midaynta dhinacyadii siyaasadda ku qaybsamay haddaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dawladnimada soomaaliya waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan waa khabiir hore ugu soo shaqeeya hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan sayniska iyo dhaqanka ee yunesko islamarkaana si dhow ayuu ula socday arrimaha dastuurka ee soomaaliya iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika hadalkana waxaa ku horreynaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka jawaabaya inuu khilaafkani dhaawacay dowladnimadii soomaaliya harun waa runta waa su-aal imaanaysa waaye sababtan wax kale ma ahee hadda kolley horta xukuumad iyo dawlad haday jirto lama dhihin dadka isugu yimid waa malaa'ig waxawaa un dad bini aadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa khilaafka laakiin sidii loo xalin lahaa ayuu ummadaha kale dhan ay u samaystay nidaam annagana kolleyba nidaam aan leenahay nidaamkan ha ahaado curdan ha ahaado ha yaraado laakiin ha ku salaysnaado dastuur weli hadda in laga shaqeeyo usii baahan laakiin waxay ila tahay aniga hadda in adduuweynihi inaan tusnay in soomaalidu ay mataqaana awood u leedahay dhexdooda inay wax ku xalistaan waa gartay anoo kaa dhex galaya wasiir qaabkii hadda wax loo xaliyey doodii socotay way ka fogeyd qaab nidaamsan 2 jeer baa laysaga hor iman gaadhay baarlamaanka markii ugu dambeysana taladu waxay isugu aruurtay hal la kala roonaado marka nidaam way ka dheereed sooma haddii si loo fiiriyo nidaam waa ka dheereed waa loo fasiri karaa laakiin ani waxaan aaminsanahay in nidaam la raacaan aaminsanahay sababto maanta aan joogno 2018 iyo meeshii aan joogna beri hore isku hal horta ma aha oo beri waxaan joognay markii la isqabsado Kampala la aadi jiray ama Nairobi ama Djibouti laakiin waa markii afraad aan umalaynayo markii lasoo fiiriyo intii ra'iisul wasaare lasoo waxeeyay ama intii motion la keenay oo jiray oo waddan gudihiisa lagu xaliyay mararka qaarkood waxay ogaanaysaa in temperatureka ama xamaasada meel xun la gaarsiiyey laakiin ugu dambeyntii waxun baa lagu xaliyay waayo faysal cabdi rooble madaxda soomaalida su-aashadan waan ku weydiin doonaa in soomaalidu diyaar u tahay dowladnimada laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhammaato siday dooni ha ahaatee madaxda soomaalidu sida hadda aad maqlay wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid jabuuti baan tegi jirnay markaan isqabnay adisa baan tegi jirnay marka ma in mar walba dib la eegaa mise waa in la eego dadka naga horeeya iyo waxa naga horreeya waxa lahanan karo horta haaruuno runtii erey bixinta intii dagaalkii sokeeye dhacay kasakow soomaaliya kusoo biiray waxa weeye geedi socod waa runtii xushmata aad uu kaga dawaajiyey markuu leeyahay meeshanu ka nimid hala eego waa fakar qani ah oo aad iyo aad dynamic ah waxa dynamic la yidhaha socdaal ku jira laakiin aan meel taagnayn aniga way ila habboon tahay in had iyo jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrini timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid aynu naalay iyo meelaha aynu u soconno waxaan taa ku darayaa inaan idhaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guuraynaa wakti siyaasadda soomaaliyeed ku dhisnayd waxa la yidhaahdo halgan loolan ah
oo iska soo horjeeda oo ishardiyaya. waxaynu u soconnaa ama transition aynu u samaynaynaa heer wada jir, wada noolaad, wada shaqayn ah. marka labadaa kala guur aynu u soconno, waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kollaba ka dhex dhici doona, iman doonana. waa fakar meesha jira. xasan cabdi kaynaan, soomaalidu diyaar ma u tahay dowladnimo? waa mahadsantahay haruun. runtii waa su-aal meesha ku jirta, laakiin soomaalidu ummadaha kale unbay lamid tahay. dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay. yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay. yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dawladihii gumaysiga ahaa, oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobocsanayn ah. laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxaa weeye, waa xaaladda dhabta ahee hadda waddanka ka jirta maxaa lagu xallin karaa? dastuurku sida wasiirka uu sheegay, dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ahee waddanka ka jira maanta? sidee baa loogu xallin karaa wey runtii su-aasha taagan. wixii lasoo maray waa goonideeda, laakiin arrinta maanta hadda taagan. laakiin sidaynu ognahay dastuurki way sheegaan marka la iskhilaafo dastuurkuu hebel ku xadgudbay ama dhinacaasi dastuurkay ku xadgudbeen ama xeer hoosaadkay ku xadgudbeen. laakiin arrintu haddana waxaa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed, soo ma? way imanaysaa, waayo dastuurku wuu qoran yahay, wuxuu sheegayaa waxyaabo muhim ahoo lagu kala baxo. tan ugu muhiimsan runtii haddaad eegto tusaale ahaan qaybta u horeysa cutubka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran 9 qodob. waa qodobada aasaasiga ee dastuurka. waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waa dawladda iyo diinta, waa mabaadi'da asaasiga, saraynta dastuurka, afka rasmiga ah, calanka iyo astaanta, dhulka jamhuuriyadda, shacabka iyo jinsiyadda, magaalo madaxda. 9kaa qodobba muran baa ka taagan. wixii lagu kala bixi lahaa meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira. midda keliya la samayn karo waxaa weeye madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada jira talo way soo jeedin karaan, way odayeyn karaan. laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo, midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan asaasigana waxaa weeye maxkamadii dastuuriga oo constitutionka uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuri markuu yimaado in lagu kala baxo hay-addaa inay jirto. hay-addii ma samaysna. waxa loo samayn lahayaana runtii lama garanayo. dastuurkii haddaa dawladda hadda jirta oo runtii meelo wado dheer soo martay oo runtii waa gartay. waa u tegi doonaa dastuurka, waan si faahfaahin doonaa. wasiir, haddaa adigu weydiiyo maxaa loo dhisi laayahay maxkamadii dastuuriga ahayd, maxaa hortaagan? horta runtii keynaan iyo faysal labadaba ku raacsanahay. horta waxa waaye meesha aan taagannahay horta in la fiiriyo iyo taarikhda aan soo marnay. yani taarikhdeenu waa iska mataqaanaa taariikh oo static oo meel taagan ma aha. isbedelo badan aa soo dhaceen. waxa aan soo marrayna weli waa ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii nagama dhamaanin. marka sida aan nahay inaan wax u samaysana loo baahan yahay. ilaa hadda lasoo gaaray dastuuraa soo samaysana siduu keynaan u sheegay. dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo, lagu daba shaqayn karaayo. laakiin dee wasiir ma shaqaynayo dastuurkii. dastuurkii khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xalinayo. waa kusoo wadaa. hase yeeshee waxa waaye hay-ado badan iyo institutiono badan oo dastuurka uu amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo 2013 ayaan la sameyn. oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka. maanta haddaan qabilan maxkamadda dastuurka waa arbitrary ama waqooyiga sida yiraahdo waxaa la yidhahdaa umalaynaa seeruwalihi la yidhahdaa. waxa waaye oo firibiga inta qabsada dhahayo goolkan waa dhashay ama ma dhalanin. marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamadii dastuurigahayd? aan ku dhameeyo hadduu arbitra yidhahdo goolka waa dhashay waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ha noqoto fifa ha noqoto ama kuwa region ha noqdaan. marka lama soo sameynin. yani awal I think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed, laakiin hadda annaga waxaan nahay aad baan aan ugu tala jirnaa. sharciga waa lasoo sameeyey, marna waa la dhamaystirayaa, xubnihi waa la magacaabayaa. wax kaleba kalama shaqeynayo. sanadkan wax kale lagama shaqeynayo. waxaa laga shaqeynaya hay-adahaas dastuurka uu tilmaamay si loo dhisi lahaa ay ka mid tahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, guddiga xuquuqda insaanka waxay sugaysaa in la marsiiyo golaha keliya, iyo maxkamadda dastuuriga. waxyaalahaasoo dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara, karbuurada ku daara ama dawlad wanaagga ku daara. waxaan qabaa waxaan hadda ka shaqaynayna waa lala soo daahay, laakiin anaga hadda waxaan nahay committed aan kuna inaan dhamaystirnaa. waay faysal, adiga aan ku imaado. hadda ka hor beri dhexdaas ahayd xamar baa tegtay, waxaa lagugu yeeray waxaa ka mid ahayd dooda ku saabsan dastuurka. marka
muranka siyaasadeed marba qof baa laysugu tegaa qofkii qof kale ka aragti duwan. waxaan soo aragnay ra-iisul wasaareyaal laysugu tegay, waxaan soo aragnay madaxweyneyaal laysugu tegay. hadda markii ugu dambeysay waxay taagneed guddoomiyaha baarlamaanka. marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan? waxaanay u wada shaqayn karin. horta anigu isku daalin maayo hadda constitutionkeenu in uu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa, because even kan maraykanka oo 200 sano jira weli meela qaarkood dood baa ka waa living document, waa documenti nool. waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa laisku qabsanayaa, maalin kasta waxbaa lagu darayaa, maalin kasta waxbaa laga dhimaya. haddii aan usoo noqdo runtii arrintan laysku qabsaday ee kollaba dooda maanta salkeedu yahay oo ah guddoomiyihii hore oo iscasilay maalinka horow, waxa weeye dhaqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guurayno. waa sida meeriska oo kale, haddii qof aa isfurtaan, furitaankaasi maalin keliya ta nadiif ma noqdo. waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa had iyo jeer kula soconaya. muddona way qaadanaysaa inaad waxaa ka gacmo mayrato. in ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko, waa yar qanjiiro iyo xagxagasho, laakiin waxa weeye sideedaba ishardigu waxay wax weyn ku noqonaysaa. tusaale aan kaa dhexgalay, waxay wax weyn ku noqonaysaa. tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sarreysa dowladda, kuwa maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro. marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa banaanaa ee dastuurka sameynayey howlahoodii waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale. hadda 3 usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arrinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa. marka dib u dhacso u keeni mayso, wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxaya sooma. runtii waa runtaa. marka la isqabsadaba waxaa dib u dhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay, because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno waxa madaxweyne ka ah, madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa, inta kale oo dhani waa hawl fudaydayaal iyo kalkaaliyayaal. waxaan doonayaa oo keliya inaan kusoo noqdo in jawaari ka tegitaankii uu iska casilay shaqada normal bay noqon kartaa. marka la isqabsado political science-gu ama casharka la yidhaahdo cilmi science-ka ee bulshadu 4 arrimood ayuu muujiyaa. persuasion ama in qofka la qanciyo, in la xoog lagaga saaro, in la riixo. ta ugu fiican ee la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofka uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaataba jirto. marka runtii anigu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo, laakiin haddii marba guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo badan diidanaa, dhinaca kalena waxyaabo badan ay saluugsanaayeen, in meeshii aanay qarax ka dhicin. waxaad garanaysaa tooliska political science-gu uu tilmaamo oo ah af soomaaliya waa ku sheegi doonaaye persuasion ama isqancin, manipulation oo heerka labaad ah oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore, iyo xoog in lagaga saaro. in maanta la isticmaalay persuasionkii ama tii qancintii. marka waxaan kutusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay 2 milyan, 4 milyan, 3 milyan. maanta in jawaari uu yidhaahdo anaa isku casilay, isagii madaxweynuhu intay qol isku xidheen. waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno oo ah kii ugu dambeeyey. kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu samaynayo ama la rabo in shaqada laga qaado, prime ministerka ha noqdo guddoomiye kale, in inta aan impeachmentiga la keenin fayl lasoo diyaariyo, faylkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka. marka waxaan ku tilmaamay anuu sheekadeyda geedi socodkan gudalooluu leeyahay, laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaananu aaminsanahay. waa garta. ilaa iyo haatan waxaan xasan baadan siinaya, waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan soomaaliya. wadankan hadda aan joogno maraykanka oo kale, wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan, 2 xisbi kala ah, ideolojiyadooda aada u kala duwan tahay, ayaa haddana dowladdii iyo nidaamkii iyo haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira. xasan maxay kula tahay? fikrad ahaan waa mid jirta wey, sida constitution ku qorana way jiraan. arrinta meesha taal waxaa weeye yani xaqaa'iq fara badan baan la ogeyn. hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xaliyey oo ah in odaygu uu iscasilay, laakiin ilaa iyo hadda meel walba waynu arkaynay, cid walba waynu maqlaynay. ilaa iyo hadda sababta keentay khilaafkan yimid oo dhab ah runtii lama oga. waxyaabaha mashaakilka jira waxaa kamid ah runtii xogo fara badan oo muhim oo asaasi ah ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oon laga markhaati kici karaynin.
tan kale ee asaasiga ee ku jirtana waxaa weeye runtii suuragal ma aha in dawladda soomaaliya lala meer dhigo iyo waddanka soomaaliya hadda dawladaha kale hadda jira. dawladda sida loo yaqaano maanta waxaan yani national stateka la yidhaha loo yaqaano waxaa jira tiirar aasaasi ah. tiirarka asaasiga waxaa weeye dalka la sheeganaya ama xuduudihiisa, madax banaanida iyo qarannimada, maaliyadda iyo resourceska, karaamada shacabka, in dawladda ay daafici karayso. mushkiladda dalka maanta ka jirta waxaa weeye dawladda federaalka ay jirta of course sidii hore 10 sano hadda ka hor way dhaantaa, laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa weeye si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u keenayo oo ajendo wanaagsan u haysto oo qorshe u leeyahay, si kasta oo ra-iisul wasaaruhu dadaal ula yimaado, si kasta oo baarlamaanka dadaal ula yimaado, xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awooddiina awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha. marka runtii waxaa fiican haddii constitutionka waxa ku qoran awooddii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa aanay isqabanaynin xaqaa'iqda dalka ka jirta, waa in dib intii la isugu noqdo la yidhaahaa war constitutionkii garanay ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xallin karno arrimaha waddanka ka jira. waayo waxbaan kaa weydiin doonaa fikirkaas. waxaan u tegayaa wasiir dawladdu qodob hore on ku laabanaya xasan uu sheegay, maxay marna dawladdu intay soo fadhiisatay ma sharixin dhibaatadii siyaasadeed ee dhowaan jirtay waxay ahayd, waxay ku salaysan tahay, marna ma idinaan sharixin. sababtu maxay ahayd? horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan ku raacsanahay oo horta mashaakilkan haysta wuxuu yahay waxa waaye waktiga aan taagan lahay iyo waxaan soo marnay horta in laisku miisaamaa fiican. hadda dooda waxay ahayd dad badan ka hadlaayeen madaxweynaha muxuu saan u samayn waaye, ama anigu intaan la soconay 3 weegi arrintaan socotay 3 usbuuc. 3 usbuuc waxa runtii is haystay waxaa ahayn 2 koox oo baarlamaanka ku dhex jirto. yani haddii la rabo waa la fasiri karaa, waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime ministerka isla socdaa meel ah, laakiin runta haddii la rabo prime ministerkana anigaaba la shaqeyn waxaan ahay wasiirkiisaan ahay, madaxweynahana waa ogeeda gaashaan liguba jira intuu ugu badneed. qofkii dhahaya halana soo dhex galo wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanku ah, halana soo dhex galo ha laga odayeeyo. hadda markii laga odayeeyey in hadda laga dhiga in laga dhigana horta ma fiicna. madaxweynaha waa ka odayeeyey, laakiin su-aashu waxayd wasiir waa ka odayeysay, waa gartay in laga odayeeyey iyo see ku dhammaato waan dareemay, laakiin dawladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray? harun hadda kabacdi see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda. mana aha khilaafka ugu horreeyay, marar badan aan soo maran khilaafaad. 2 prime minister lagu saaray, 2 motion baa la keena lagu xaliyay, laakiin hadda inaan ka hadalno waa see lagu saxaa, si lagu sixiraan waxaan qabaa dastuurkan curdanka inaan hagaajino, waana ku dhex jirnaa hadda maxkamadda dastuurka in la dhiso. mechanism kale sida hadda keenaan uu sheegayna inaan heli karna xataa waa fiicanta, iyadoo la heli karo maxkamad dastuuri ah. yani anaga hadda aqal saraan qabnaa, yani waxyaalo badan laisu geyn karaa jiraan oo keeni karaan xal keeni karaan, laakiin ilaa dib isugu noqonnaa. hadda kolleyba ilaa sanadkan dhammaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno eegista dastuurka. faysal waan ku siinayaa, laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka. waxaa marti igu ah oo khadka muqdisho uga jira wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil, khadka los angelesna waxaa ku jira faysal cabdi rooble oo ah khabiir ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa. gobolka michiganna waxaa uga jira xasan cabdi kaynaan oo isna khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda unesco, haatanna si gaara ula socda arrimaha soomaaliya. marka aan kusoo laabano dooda faysal. waxaan rabay inaan tix raaco runtii waxa arrintii guddoomiyihii hore hadda iscasilay iyo mooshinka iyo sideedaba mooshin laga keeno sidaynu hore u sheegnay ama ibn madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud mar laga keenay, waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay mooshinka ka keenayaan. waxaan hadda dhacay waa practiceskaa hore ama waxaa hore ka dhici jiray dawladihii hore ee kala guurkaa la socdo, wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socdo weeye. laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo, because waxa weeye dal kala tegay uu keenan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed. of course waa arrinaynu ognahay in dawladdu aanay awood u lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto, oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajnabiga ahayd. waxa weeye 2 halgan baa lagu jiraa markaas Soomaaliya. mid waxa weeye in la dhiso dawlad sharciyaad leh
midda kalena waxa weeye dawladda soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereigntygeedii ka lumay. weli sovereignty buuxa soomaaliya ma haysato. 25,000 oo ajnabi ayaa ilaaliya, ilaa madaxtooyada la ilaaliyaa, baarlamaanka la ilaaliyaa. wataad arkaysa maalinteeda u Jawaari waa sirteennii ugu sarreysay, waa ninka saddexaad ee awoodda dalka mise labaad in nin ajnabi hor fadhiye. marka dhowr geedi socod baynu ku jirnaa oo midda ugu weyne ay tahay in soomaaliya ay la soo noqoto madax banaanadeedii. taasna giddigeen baa ka wada canaanan, innagaa duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana giddigeed bayna saaran tahay. waa gartay. su-aasha uu xasan soo jeediyey, xasan adna waa ku iman doonaa, waxay ahayd ma la difaaci karaa madax banaanida iyo midnimada waddanka? dowladdani ma difaaci kartaa? wasiir haddaan adig ku siiyo su-aashaas jawaabteeda. madax banaanida waxaa horta nasiib darro ah dad kale inay ogaadaana loo baahan yahay. khilaafkan keliya haddii la fiiriyo waa wax gooniya, laakiin in la fiiriyo waa hadda sanadan ay joogtaa xukuumad hadda jirto uu hogaaminayo prime minister xasan kheyre, madaxweynena ka yahay farmaajo. haddaa fiiriso waxyaalaha ugu badan oo laga shaqeynaya hadda waxay ahayd sidii loo soo celinaya madax banaanida. ko sidii loo dhisi lahaa amniga qaranka, waadii la sameeyey madasha amniga qaranka oo loogu talagalay maamul goboleedada jiraan iyo ciidamada joogaan sidii laisugu dhafi lahaa, ciidamada isku dhafsan oo kala wareega Amazon waqti xadidan. waa kow madax banaanaday u tahay. labo waxa laga shaqeynaya oo lagu soo guulaysto waxa waa sidii deyntana loo ka cabsin lahaa. waxaan ku jirnaa program la yidhaahdo staff monitoring program wasaaradda maaliyadda ay wado oo IMF iyo World Bankiga ay bankiga adduunka ay nagu wadaan oo la fiirinayo saan u maamulno dakhliga waddanka iyo ururinta iyo sidii loo isticmaalo lacagtaba. iyadana waxaana la siiyey class oo maraan dheerayn waxay bilaabanayso programkaa bilaabanaya oo lagu cabsin lahaa. labadaas waxay ka mid yihiin soo celinta madax banaanida waddanka. waxaasoo socdo ayaa haddana mataqaanaa mawjadahan siyaasadeed oo maalin walba imanaya. mawjadahaas waa lala xisaabtamaya, laakiin musawirka weyn hala fiiriyo oo ah meesha loo socdo. intaas dhan su-aasha ay weydiinaysay hadda ka mid tahay harun oo ah see ama uu keenaan iyo faysal oo ah see loo soo celinaya madax banaanidii. madax banaanidii waxay leedahay haykala gooniyo ama meelo loo maray leedahay. xasan ma ku qanacda sharaxaada uu wasiirku bixiyey? wallahi wasiirku waa arrinta uu sheegay way jirtaa. dawladdan iyo dawladihii ka horreeyeyba qolo walba waxbay soo kordhisay. runtiina dawladdan markii ay bilaabatay waa dhab mid la iska indhatiri kalena maaha inay dardar cusub la timid. laakiin waxyaabaha aasaasiga ahee jira dhabta waxa weeye ilaahay hadda waxaynu ku mashquulsannahay xamar iyo waxyaabaha ka jira. waa laga maarmaan in arrintan la eego. Jawaari arrinta baarlamaanka hadda ay jirtay siduu Faysal sheegay, Jawaari actually waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaasha ka baxo madaxweynaha qabanaya. waa awood muhim ah weeye. ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano. marka waa laga maarmaan in dawladdu gaar ahaan hay-adda fulinta ay khilaafaadka heerkaa gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yacni midnimada iyo qarannimada Soomaaliya iyo awood qaybsiga ay runtii dadka u sharaxdo si shaki uga baxo. tan labaad waxaa weeye haddii la doonayo in constitution keliya wax lagu xaliyo, maanta constitutionkii ma xallin karo. runtii waa lagama maarmaan in meesha la soo geliyo fikrado kale iyo hal abuur kale oo sahli kara hadhow in khilaafaadkana la yareeyo, marka u dambaysana ujeedada u weyneed la gaaro. maxaa ka mid sida anigu waxaan aaminsanahay haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaala ee qabyada ah ma xallin karo mashaakilka ka jira. waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitution wax loogu bedeli lahaa ama wax loogu kordhin lahaa, ama xal kale oo siyaasadeed oo framework cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka. arrinta Somaliland anigu waxaan aaminsanahay in ay dawladihii Soomaalida ahaa iyo madaxda Somaliland labadaba inay sahladeen. arrinta waxay soo taagneed muddo fara badan. runtiina anigu waxaan qabaa in la sahladay. waxa la sahladana way ku sahladaan. nidaamka federaaliga dhibaato weyn baa ka taagan. nidaamka federaaliga waad maqlayseen maalin dhaweyd in markii la isqabqabsaday ay golaha ay samaysteen dawladaha federaalka ah ay yidhaaheen dawladdu dalka waxay xukuntaa 10% inta kalena 90%. waa xaqaa'iq kasta wey. xaqaa'iq la iska indhatiri kara ma aha. marka in la helo yacni ama isbedel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan cakiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah
in awoodda la qaybiyo. awoodda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa. waa laga yaabaa berri iyo saa dambe inaanay imanin, laakiin fikirka in lagu daro in inta dalku xaalkan sida uu yahay hal madaxweyne oo awoodda oo dhan u yeesha. hadda waxaan ku arkayay dastuurka madaxweynaha ayaa magacaabaya hay-adda maxkamadda dastuuriga ah. anigu waxaan qabaa matalanba in taa dib loo eego oo baarlamaanka, labada aqal ee baarlamaanka ay noqdaan cidda toos u magacaabaysa. waxyaabaha kale ee iyadana la samayn karo waxaa ka mid a in runtii haddii taa institutionada inaan hal meel la geynin. hadda oo kale dhibaatadii jirta waxaa waye baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dawladan kale ee xamar ka dhisan ee international community-ga la yidhaha waxaa laga yaabaa 4 kilometer inay isu wada jiraan. markii dalka uu ku jiro xaalad isqabqabsiga ah, waxaa fiican in hay-adaha aasaasiga ahee dastuuriga iyo awoodaha waxoogaa la kala durkiyo si ay isu kala nafisaan oo midna midda kale aanay u caburin. maalin dhaweyd waxaa la sheegaya in guddoomiyuhu ciidan la yimid 4 taliya ciidanna ay dalka yimaadeen. waxa la yaab kale waxaa waaye waxaa ku jiray taliyihii ciidanka asluubta. runtii la yaab bay lahayd waxa taliyaha ciidanka asluubta meeshu uu u yimid iyo wuxuu ka qabanayay. waxyaabaha la yaab kale dadka fajaca ku ridaya wey. waayo xasan waad mahadsantahay. faysal cabdi roble, maxay kula tahay qodobkan uu soo jeediyey xasan ee ah in wax laga bedelo maadaama dastuurka uusan shaqaynayn in nidaamyo kale la fiiriyo? actually dastuurku waa qaybiyey awoodda in dawladdu meel keliyata ay ku dunto haddii wax ka dhacaanba muqdisho, in meeshaasi ay noqoto meeshii keliyata ee dawladdii ku dumaysay sidii inagu dhacday berigii hore aanay dhicin, because hadda wax kasta oo federaal ah xamar buu ka jiraa. talada aad baanu la wadaagsanahay kaynaan oo ah in wasaaradaha qaarkood la raro oo meelo qaarkood la geeyo oo ama ay qayb weyn ku haystaan si ay ula xaajoodaan connectionna ula yeeshaan dadweynaha soomaaliyeed meeshay ku nool yihiin. I think arrinta somaliland completely waa ku raacsanahay. dawladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyey, inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabayaaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday, ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibaddu qaraar ka soo saaray, dhowr gooboodna uu tegay si uga caddeeyo positionka dawladda iyo ummadda soomaaliyeed ay ka leeyihiin in dalku aanu kala go-in, inkastoo somaliland ay leedahay waa kala goonay. arrimaha laga gaabiye weeye, because hadda muddo beridow 30 sano bay maraysaa inta somaliland ay leedahay dal gaaraanu nahay. marka challenge-ga dawladda dhexahaysa waxa weeye dagaal laguma qaadi karo oo soomaaliya dagaal u diyaar maaha, mana fiicna dal degan ama qayb degan oo somaliland oo kalaa in la qashqashaadaa. hadda awoodeedna ma hayso dawladda federaalku, danna uguma jirto, laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa, because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan. dalkuna waa sii kala fogaanaya. waa gartay. qodob aan rabay inaan ka hadla waxay ahayd awoodda dadka shacabka. inkastoo doorasho toosa aysan ka dhicin soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda, ma aysan dooranin hadday yihiin madaxda dowladda, hadday yihiin xildhibaanada, inkastoo haddana hogaamiyayaasha waddanka iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay mar kasta dhaxaan markii khilaafkii aan aragnay dhowaan oo kale uu yimaado, danta shacabka ayaa sidan kuma jirto ama saanay ku jirtaa. marka haddana ma muuqato wasiir, sida aad waraysi dhowaan iigu sheegtay, waxaad tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono. haddii marka dastuurkan afti loo qaadi doonin, sida muuqata dadweynuhuna toos uma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga. marka wakaaladii rasmiga ahayd ee dadka shacabkaa say ku fulaysaa, say ku suurto galaysaa ama ku hirgelaysaa rabitaankii dadku suu ku hirgelaya? harun hadda waxaa socdo oo xawligeeda la gelayaa mar dhow dib u eegistii mataqaana dastuurka iyo sidii loo dhamaystiri lahaa loona qurxin lahaa. dastuurka hadda aan haysano waa mid qalfoofa aan soo sameynay, wuu noo soo shaqeeyey. hadda waxaan kusoo gudubnay dhowr madaxweyne, dhowr prime minister, dhowr mooshino, dhowr cabinet ama wasiiro, 2 goor oo mataqaana xildhibaano lagu soo doortay. waa noo shaqeeyey lahad, laakiin wuxuu u baahan yahay sidoo hadda faysal lahaana waa geed koraya waa oo in la qurxiyo u baahan. marka dhowr waxaan rabaa marka inaan soo qaato. ko waxa waaye madax banaanida waddankan ama sovereign ma yahay waddan sovereign ama madax banaan ma noqon karaa hadduusan dhaqaalo haysanin. dhibaatooyinka ugu weyn la haysto waddankan waxa waaye dhaqaalo waaye. yani ma aruurin karno mataqaanaa canshuur fara badan oo waddanka dhan laga aruuriyo. waa ujeedaa waxyaalaha jira oo mataqaana xagga amniga ah
lacagihii adduunka laga qaadan jirayna carqaladaan laga haysato tan ugu horeysa da ka shaqeynan waxaa horta ko lacagahaas adduunka laga qaadan jiray saan u access garayn lahayn ama aan u heli lahayn oo ah deymahayna laka cafiyo maxaa yeele mashaakilada ugu weyn la haysto waxaa dhaqaalo waa ha noqoto dagaalka ha noqdo ciyaal dhalinyaraha oo shaqa la-aana ha noqoto goboladii dhaqaal la-aan hayso wax laisugu hagaa ma jiraan xataa somaliland issue xataa waxa waaye waa dhaqaalo waa wan mida kale waxyaalaha hadda aan ka shaqeynayn waxaa kamid a in federationka la dhisaa dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo wuxuu yiri keynan wuxuu yiri carqaladaan laga haysato federation inaan sameyno oo wadankan la baahiyo awoodiisi iyo resourceskiisi danaan loo keentay because wadankan wadan sida tusbax u kala tegay waa tusbax hadduu daatana waa loo fororsadaa tartiibaa loo soo guraa taasay kamid ah somaliland tan ugu fogo waayo oo u baahan in si fiican loogu fororsado somaliland runwaayo siduu hadda faysal u lahaa nabad u haystaan oo 22 sana dad walaalaheena meesha degan kala fikradaa leeyahay waxyaala badanaa dadka kasoo dhexdhacay see loo wada hadlaa federationkan waxaa aaminsan lahay inuu u dhaafi karo dariishad ay somaliland kusoo geli karto wada hadallo waayo wasiir waxaan rabaa inaynaa xooga saaran somaliland sababto a somaliland dooda kuma saabsanayn halkana kuma jiraan khadka marka isma difaaci karaan aynu u leexano dhinaca dastuurka haye oo ahayd midda ahayd wakaalada iyo matalaada wakaalada iyo matalaada runtaa waaye yani waxaa iska soo daba noqnoqonaya waxa waaye 200 oo xildhibaano oo inta soo doortaan in yaroo qof ah yimaadaan madaxweyne soo doortaan dadkiina waxay leeyihiin dadkaan soo doortay marka hadda sheekada socota ama sheeke qarameedka socota hadda waxa waaye sidii loo geyn lahaa doorashadii degaanka ama district ama xildhibaan ha noqdo xataa madaxweynaha xataa ha noqdo 2020 sidii loo gaari lahaa election oo hal qof iyo hal cod ah taasna waxaan rajaynaynaa inay noqotaa yani sheeke qarameed oo meel weyn gaarto maxaa yeelay madaxweyne iyo xildhibaan shicibka soo doortay uu kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaanaa gaalkacyo iyo mataqaanaa beledweyne waa ka fiican tahay madaxweyne iyo xildhibaan way soo doorteen 50 qofood ama 200 oo qofood taasna waa wax hadda socdo waaye oo aan ka shaqeyno waayo waynu soo gabagabaynaa faysal mid baan jeclahay inaan ku darso I think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay midna waxa weeye visionka madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin anigu arrintana waa diirkan ka siibaya markii uu sheekh shariif uu prime minister ka dhigay maxamed cabdillaahi farmaajo doorkii hore waxaan arrintaasi way dhiiranayd because laba xaafadood ay ku noqnoqon jirtay taariikhda soomaalida madaxweynaha iyo prime ministerka buu ka yar baxay oo waa yar fogaaday macnihi marmar inaad step qaado waa fiican tahay I think dawladda maxamed cabdillaahi farmaajo iyo xasan khayre waxaa fiicnaan lahayd laguna dhiirigelin lahaa waxna yar nadiifin lahaa waxna dhibaato badanna aanay kasoo gaadheen oo la rabo inuu qofku calool adayg yeesho isteebada qaarkood markuu qaadayo waxaa ka mid a double dipping ama laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xeerdejinta anigu madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo prime ministerkiisa haddii reshafal dhaco waxaan aad iyo aada ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummadda soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiiro ku jira dejinta oo inta ay karaankooda ay ka dhigaan dad sida cabdiraxmaan xoosh oo kale oo professionalisa isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arrintan sida aad ka warqabto haaruno xajiin badan bay keentay wax 40 ku dhow oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan aad baad umahadsan tahay xasan cabdi kaynan waa mahadsantahay anu arrintan dambe faysal aad baan ugu raacsanahay waayo adduunkana badanaa way ka jirtaa oo waxaan yani qofkii laba meel oo aasaasi ah oo executiveka iyo hay-addii fulinta iyo hay-addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa taa macnaheedu ma aha inay wasiirro xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaaladda maa dalku ku jiro arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo afrika wadamo fara badan oo qani ah ka jira dadkooduna qaarkood soomaaliya way ka liitaan ishuuga runtii lacag ma aha tan ugu dambaysan kusoo koobaya waxaa weeye madaxda soomaalida waxaa laga maarmaanay inay ogaato soomaali keliya dalka iskuma hayso wada shisheeyaa dalka jooga oo tiro badan haddana dalalkii carabta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg
waxyaabihii gumaysigii reer galbeedka ahee Berlin markii uu soo baxay wax u qaabkiisa leh hadda la soo baxeen waxaanay jira runtii hadallo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska Africa in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalal reer galbeed ah inay si gaar ah doonayaan inay isbedel ku sameeyaan qaabka uu jiro haddaanay hurdada ka toosin runtii dadka Soomaalida waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay iman doonto oo markii hurdada laga soo kaco iyadoon dalal haynin wax kaloo lahayana aan jirin in hurdada laga kici doono runtii waa laga maarmaan in arrimahaas taa loo eego waa mahadsantahay aad baad mahadsantahay xasan wasiir cabdiraxmaan xoosh intaanad soo gabagabaynin horey waxaad u ahaan jirtay xildhibaan wasiirna waad ahayd inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aanad xildhibaan ahayn hadalka ugu dambeyn waa ku siinaya dhowr wax horta midda ugu horeysa midaan ah oo hadda Faysal soo jeediyey waa sheeko iyadana socoto waa sheeko qarameed socoto waa ama dood qarameed socoto oo dhayso maan aadna sidii Kenya la sameeyo kale Kenya 2010 markay dastuurkooda cusub samaysteen waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonayo inuusan noqon xildhibaan oo macnaheedu waxay tahay hadda adigu xildhibaan ah wasiir laga dhigo automatically isla markiiba waxa waaye xildhibaanada ka tagaysaa taas uu kulay dood hadda anaga dastuurkeena waxa ku qoran hadda inuu xildhibaana ka iman karo banaankana ka iman karo marka wax oo dastuurka in lagu bedelo u baahan laga munaaqashoodo waaye waxay u taala shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda iyo siyaasiyiinta waddanka u taala haddana xisbiya bilowdeen kulli ayagana waxay ka qabaan taas waa taas midaan kale oo xasan soo jeediyay oo ah in gacmo shisheeye nagu jiraan definitely yani waa sax waa gacmo shisheeye waa nagu jiraan laakiin يعني أدونك هو شقة هوا أديك هذا أنا وحسمي سنين أنا سمي سنين مثلا قرشة بناك على جاسو قرشينا مركا سومال وحلو بها هنا أي واحد قرشيستان طبعا يعمل شيء ونوجد حتى ردنا حتى المعلومات كسوف راح على ومثلا بروفيسور جواري يكهربوا يعمل شيء ونوجد والسياسة لها ولما كما تقالنا نقوله يسود حقليا لكن wax proof wax cadayna ma jiraan Soomaa oo muujinaya in gacan shisheeye ku jirta arrinta baarlamaanka ma rabo inaan ka jawaabo taas maxaa yeelay haddaan ku ilaado waa jiraan Haruna waxa laga yaabaa inaad cadayntii kayn mugto marka ma rabo inaan ka jawaabo taas waay dooda mar kale inuu ka dhigana aad baad u mahadsantahay barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil xasan cabdi kaynaan oo ah khabiir hore ugu soo shaqeeyay hay'adda UNESCO iyo Faysal Cabdi Rooble oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika inta aynu ku kulmi doona barnaamijkan oo kale nabadgelyo aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana hiiraan xiisad colaadeed ayaa weli ka jirta deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan culimada magaalada beledweyne iyo aqoon-yahanka ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaaladaasi labada beelood u dhexeeya warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen xasan dhaqane dagaalka labada maleeshiyo beeleed ee toddobaadkan ka dhacay deegaano u dhow tuulada Bukure ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyay 12 ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay culimada dariiqada ahlu sunna wal jamaaca ee gobolka Hiiraan oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ugu baaqay beelaha ay maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan in si shuruud la'aan ah ay u joojiyaan dhilada colaadeed sida uu tilmaamay Sheekh Cali Cusmaan Cali oo ka mid ah mashaayikhda gobolka Hiiraan labada qayb culumada gobolka Hiiraan iyo Tangal Gaduudba inay isku garabsato dalkan asaga ardadana ayadoo fisanan u imaanay insha Allah taala ayadoo fisanan laga tagi doona adigana waxaad ku leedahay dhulka 2 mitir aad ku leedahay dhulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga abuuray ummadana asaga abuuray asbaab lagu kala milki karaana way jirtaa shariicada islaamka ee qayaxday qof walba intuu milkiye inuu ku ekaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryo inuu ku deeqo qofka kaleento oo walaakiisana uusan dulmi u geysan walaaka hadduu galdaran yahay gacanta qabo
hadduu asaga galdarrada wada gacanta qabee galdarrada ka joogdhe haddii laga galdaran yahayna ciddii ka galdarneed u tagay waxa oga dhici xaqiisa haddaad oga dhici karto waxa dhimanaya waa walaalka waxa dhiiggiisa uu daadanaya waa walaalka amba waa abtiga amba waa ina abtiga dadkuna waa wada dhasheenay insha allahu tacaala annaga waxaan ku egnahay inaan baaqaa soo jeedino waana ka xunnahay wax halkaa ka dhacay haddaan indhaha ka oy weyna xataa insha allahu tacaala calooshaan ka oynina dhibaatada halkaa ka socoto darteed culimmada ahlusunna waljamaaca ayaa waxay soo saareen bayaan 4 qodob ka kooban oo ay u arkeen inuu wax ka bedeli karo xaaladda cakiran ee deegaanka ka jirta waxaana bayaankaasi saxaafadda u aqriyey sheekh cabdicasiis sheekh axmed qodobka koobaad culimaa udiinka gobolka hiiraan waxay codsanayaan si deg deg ah in culimaa udiinka labada beelood ama labada gobol ee hiiraan iyo galguduud ay ku gaaraan goobta ay wax ka dhaceen si ay ugu kuurgalaan arrimaha meesha ka jira waxa la kala tabanayo markaana iyagoo alla ka baqaya subxaanahu wa tacaala dadka ay ku wacyigeliyaan waxa laysku haystaa inuusan dhammayn wax wiil ku dhinta dhigna ku daato qodobka labaad labada maamul ee ka jira labada daamood ama labada dhinac ee dagaalku dhex maray iyana inay ku taageeraan culimaa udiinka inta tabartooda ayna ka howlgalaan qodobka saddexaad dadka kala duwan ee dhiigga faraha kula jira mid gacan ku dhiiglaa iyo mid mici ku dhiiglaa iyo mid maan ku dhiigla iyo mid maskax ku dhiiglaa iyo mid calool ku dhiiglaaba intuba waa loo qaybsan yahay arrintaas si deg dega inay uga waantoobaan qof walbana uu ka taliyo maslaxada ummadda gobolka hiiraan iyo gobolka xiga ee galguduud qodobka afraad in si deg dega ay uga howlgalaan culimaa udiinka odayaasha maamulada labada dhinac sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada ishor fadhiya weliba maanta waxaa war nagu soo gaarhaya in kastaanay xabad soconin inuu diyaargarow ballaaran jiro diyaargarowgaas si looga hortago in laga howlgala sida ugu dhaqsaha badan in la kala qaado ciidamada meesha isku hor fadhiya waa qodobka ay codsanayaan ee ugu dambeeya badrudiin axmed cabdulaahi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada gobolka hiiraan waxa uu sheegay in soomaalida ay hore u tijaabisay dhaxalka uu reebayo dagaalka sokeeye runtii waa wax aada qaali u ah nafta bini aadamku waxaa kaloon hore usoo tijaabina hore usoo aragnay dagaal sidiisaba inuusan faa'iido lahayn dagaalka dadka walaalaha ana waaba kasii daran yahay wax horumar ah cid ku gaartayna ma jirto cid ku gaari doontana ma jirto sidaa darteed waxaan codsanaynaa haddaan aqoon-yahanada nahay in dadka walaalaha ah ay joojiyaan dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan ayna xabad damba dhicin qof dambena meesha uusan dhiig kaga daadanin maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada usii kordhaya abaabulka labada dhinac iyo maleeshiyaadka lagu gurayo goobihii lagu dagaalamay waxaana jirta cabsi laga qabo in mar kale uu dib dagaal u qarxo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waana tabintayadii galabnimo haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kukaay oo istuudiyaha igula sugan kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaan ku soo qaadaynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dalka suuriya toddobaadkan waxaa magaalada duume ee duleedka dimashik la sheegay inuu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika maraykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ah ka bixiyey madaxweyne trump waxa uu sheegay inay jawaab degdega ka bixinayaan isagoo mas-uuliyadda dhacdadaasina ruushka dusha kaga tuuray sara hakabi sanders afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee suuriya ka dhaca uu ruushku leeyahay waxaan rumaysannahay in madaxweynuhu uu caddeeyey mowqifkiisa arrintan ku aadan ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas-uul ka yihiin waxa ay horay u ballan qaadeen in aan gudaha suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada wayna ku guuldaraysteen waxa ay suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo fiitow u adeegsaday 6 qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrintan waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin hawshan saara waxa ay xustay in maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysanno dhowr khiyaar doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin ilaa iyo haatan
lama qaadan go'aan kama dambays ah. dhinaca kalena wasiirka difaaca maraykanka jim mares ayaa isagoo ku sugan dalka Holland ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo militari qaado. waxaan weli qiimaynaynaa xogta aanu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bahwadaagteenna welina waannu ku howlannahay arrintaasi. waxaan diyaar u nahay inaannu qaadanno tallaabooyin militari haddii ay munaasib yihiin hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo. ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajuglaynta uu Trump Twitter ka mariyey iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin iyadoo loo arkay in uu Maraykanka kala jeedo. aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dheehan karo. hadaladani waxay u muuqdaan marka hore Maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday. nidaamka ka taliya ama ka arrimiya ee dalkan Suuriya ee hogaaminaya madaxweynaha Bashaar al-Assad marar badan ayaa wax looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah. waa markii saddexaad uu adeegsanayo marka fariinta uu Maraykanka dirayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay. mana aqbali karno hub oo dunida dhan ay isku raacday ama international lawga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado, in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado, iyadoo Maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiin ah lagu dilo hub noocaas oo kale ah. laakiin sidaan la socona nidaamkaasi garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa ruushka oo kow ah iyo Iiraan oo laba ah. arrintan haddii Maraykanku uu yidhaahdo arrintaas faragelin baan ku samaynayaa sidee isku qabanaysaa Bashaar al-Assadna ay garbaha ka taagan yihiin ruushka iyo Iiraan? arrintaasi waa arrin meesha ku jirto gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn, dowladaha fara badan ee nidaamka hadda garab taagan waxaa ka mid ah dowladda weyn ee ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi ay la shaqayso. hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee ay siisay dowladda ruushka. saasi darteed Maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayay xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalkan ruushka, gaar ahaan dhulka Suuriya ay si toos ah ugula dagaalamaan aad bay isaga ilaalinayeen. saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halku-dhagga guud ee ka dhexeeya iyaga iyo ruushkaba inuu ahaado wada shaqayn guud in la sameeyo, in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada. wixii intaasi kasoo harana in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhex mari kara oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raalli kaga yihiin kusoo idlaan kara. hase ahaatee ruushka hadda waxa uu ku dhaaranayaa in uusan aqbalaynin faragelin military oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doontaba ha ahaatee, in ay arrintaasi aada uga soo horjeedaan bay caddeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweyn ee kala gedisan reer ruush ay bixinayaan. hase ahaatee Maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday, isaga iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray timekii ay islahaayeen waxa ay mudan tahay in tilaabo la qaado gaar ahaan mid military ah.